subax wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiye saaka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah al-shabaab oo la sheegay in odayaal ay ka afduubteen deegaan ka tirsan gobolka Gadow ciidamada amniga oo saaka gadood ka horsameeyay xarunta madaxtooyada Garowe ee gobolka Nugaal dadka shacabka ay ku nool deegaanka Daynuuna oo ka cabsi qaba in dushooda ay ku dul dagaalamaan al-shabaab iyo ciidamada xoogga taliyaha ciidanka xoogga iyo mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland oo lagu wado in saaka ay booqdaan duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose koox burcadbadeed Soomaaliya oo weerar ku qaaday marka maraya xeebaha Soomaaliya Sacuudiga oo qirayhiin u dhintay suxufigii la waayay iyo dad ka badan 100 ruux oo ku waxyeeloobay markabkii tareen ku jiray Hindiya Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad waa subaxnimo sabtiya taariikhdan waxay ku beegan tahay 20 bisha tobanaad sanadka 2018 warkaas oo dhan saaka waxa akhrinaysa wariyeen Xaabulul Cabdulla Cubayd waa maasanta Ali Ibrahim Cabdullaahi bismillaahir rahmaanir rahiim subax wanaagsan warkii oo faahfaahsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa la sheegay inay odayaal ka afduubteen deegaanka faxfaxdhuun ee gobolka Gadow sida warkan uu ku faahfaahinayo Axmed Maxamed Ibrahim wararka ka imaanaya tuulooyinka hoostaga deegaanka faahfaxdhuun ee gobolka Gadow ayaa sheegaya in halkaasi xalay ay ka kaxaysteen dagaalamayaasha al-shabaab odayaal iyo dhalinyaro kuwaas oo ay ku eedeeyeen sida la sheegay inay basaas u hayeen dawladda Soomaaliya iyo waliba Mareykanka sarkaal diiday magaciisa iyo codkiisa in loo adeegsado warbaahinta ayaa xaqiijiyay in dagaalamayaasha al-shabaab ay kaxaysteen odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada intaba balse aysan ogeyn halka ay la aadeen gobolka Gadow ayaa maalmahan dambe waxaa ka dhacay duqeymo ay geysanayaan diyaaradaha dawladda Kenya walow arintaasi cabasho balaaran laga muujiyay saraakiisha ciidamada xoogga dalka qaybtooda Gadow ayaa sheegay inay wadaan howlgallo lagu baadagoobayo dadka ay ka kaxaysteen al-shabaab deegaanka faahfaahsan ee gobolka Gadow al-shabaab ayaa dhawaanahan waxay ku toogteen degmooyin ka tirsan jubbooyinka dad ay ku eedeeyeen inay hayeen basaas isla markaana ay xukuntay sida ay sheegeen saraakiisha al-shabaab maxkamadooda ciidamada amniga ayaa saakay gadood waxay ka horsameeyeen xarunta madaxtooyada Garowe ee gobolka Nugaal waxayna ka cabanayaan mushaarkooda oo aysan qaadan Cumar Maxamed Soomane ayaa faahfaahinaya wararka idaacadda kulmiye ay saaka ka helayso magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa sheegaya in ay xiran tahay gabi ahaanba wadada gasha madaxtooyada magaalada Garowe ilaa wasaaradaha magaaladaasi oo ku yaala duleedka magaalada Garowe ujeedka loo xiray wadadan ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay kadib markii ay isku dhiririyeen ciidamada amniga madaxtooyada oo cabasho xoogan ka muujiyay in ay mushaar la'aan haysato muddo 7 bilood ah oo ay sheegeen inaanay mushaar ka qaadanin xukuumadda madaxweyne Cabdulle Maxamed Cali Gaas ayaa saaka waxay sheegeen inay sabab u noqotay inay xiraan wadooyinka gala madaxtooyada iyo wasaaradaha magaaladaasi goobjoogayaal ku sugan magaalada Garowe ayaa sheegay xilligan in ciidamadu ay ka cabanayaan mushaar la'aantaasi wariyaasha ku sugan magaalada Garowe oo aan la hadlay ayaa ii xaqiijiyay xilligan in dhaqdhaqaaqa wadada gasha madaxtooyada magaalada ay xaniban yihiin ma jiro wax war ah ka soo baxay madaxtooyada magaalada Garowe ee ku aadan cabashada ciidamada ee mushaar la'aanta ka cabanaya dadka shacabka ah ee ku nool deegaanka Daynuuna ayaa ka cabsi qaba in dushooda ay ku dul dagaalamaan al-shabaab iyo ciidamada xoogga kadib markii ciidanka xoogga ay halkaasi ka baxeen waxaa ka wareysanay warkan wariyahayaga Axmed Saadiq Cabduqaadir Yarow deegaanka Daynuuna ee gobolka Bayo 25 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Baydhabo waxaa ka jira cabsi aad u xooggan oo ay qabaan dadka deegaanka cabsidaas oo ah inay ku dul dagaalamaan dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidanka xoogga dalka oo iyagu hadda ku sugan deegaanka Maayafulka oo u dhow magaalada Baydhabo ee gobolka Bay tani waxay timid markii shalay ay soo faarujiyeen ciidanka xoogga dalka fariisimihii ay ku lahaayeen deegaanka
daynunay ee gobolka bay shalay waxaa halkaasi ka soo baxay ama ka soo tagay ugu horeen ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM ee ka socda dawladda Ethiopia markii ay ka soo tageen ciidamada Ethiopia deegaanka daynunay ciidamadii xooga dalkana iyaguna waxba kama aysan dambeeynin oo waa ay soo dhaqaajiyeen oo dhanka deegaanka ama maayfuulka ay soo aadeen dadka deegaanka oo aan la hadlayna waxay ii sheegeen inaysan ka fogeyn ciidamadan ama rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo xitaa aysan u dhaxayn wax ka yar 15 daqiiqo markii ciidamada Ethiopia ay ka soo baxeen ciidanka xooggan ay ka soo daba baxeenba in dagaalamayaasha al-shabaab ay la wareegeen tuulada daynunay iyo xirada ciidanka xoogga dalka ee daynunay in ay la wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab oo hadda gacanta ay ku hayaan ciidanka xoogga dalka ay iyagu wax ay ku sugan yihiin deegaanka maayfuulka oo u dhow magaalada Baydhabo marka loo eego maayfuulka iyo deegaanka daynunay waxay isu jiraan wax ka yar 10 kilomitir ay isu jiraan oo iyagu hadda se waxa socota qabanqaabo dagaal ama abaabul dagaal oo ku aadan sidii ciidamada xoogga dalka ay ugu laaban lahaayeen deegaanka daynunay sababtoo ah daynunay waa goob istiraatiiji ah waana wadada xiriirisa buuraha kaba iyo magaalada Baydhabo haddii ay dhacdo in dagaalamayaasha al-shabaab ay sii haystaan deegaankan waxa kala go'aya buuraha kaba iyo Baydhabo taas oo runtii maamulka koonfur galbeed iminka ay wadaan iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka abaabul dagaal oo ku aadan sidii ay dib markale ay kagala wareegi lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab wariyaheenna Axmed Saadiq Cabdiqaadir Yarow oo Baydhabo jooga ayuu kaasi ahaa taliyaha ciidanka xoogga iyo mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland ayaa lagu wadaa inay booqdaan duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose sida warkan uu ku faahfaahinayo Farxaan Maxamed Xuseen waxaa saakii lagu wadaa in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ay kormeer ku sameeyaan xarumaha ciidan ee ku yaala deegaanada Jubbaland isla markaana ay ka howlgalaan ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Jubbaland taliyaha ayaa waxa uu guurgali doonaa xaaladda dhabta ee xilligan ka jirta saldhigyada ciidan ee ku yaala gobolka Jubbada Hoose sidoo kale taliyaha ayaa meelaha uu tagi doono waxaa ka mid ah Baarsanguuni iyo Bulguduud oo dhammaantood ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Jubbaland taliyaha ayaa shalay ilaa iyo xalay wuxuu kulamo gaargaar la qaadanayay madaxda ugu sarreysa maamulka Jubbaland iyagoona ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka al-shabaab iyo ka saaritaanka deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa shalay gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose isagoona halkaasi u tagay ka warqabka ciidanka dawladda iyo kuwa maamulka Jubbaland koox burcadbadeed Soomaaliya ayaa weerar waxay ku qaadeen markab maray xeebaha Soomaaliya Cabdullaahi Xuseen Canshuur warkan aynoo faahfaahiyo koox burcadbadeed ah oo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin Soomaalida burcadbadeeda ah ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen markab dagaal oo ku sugnaa xeebaha Soomaaliya ka oo laga lahaa wadanka Hong Kong midowga Yurub ayaa shaaca ka qaaday in hoos u dhac uu ku yimi howlgallada kooxaha burcadbadeeda Soomaalida tan iyo sanadkii tagay ee 2017 warbixin ka soo baxday xarunta IMB ee la socota dhaqdhaqaaqyada burcadbadeeda ayaa lagu sheegay in markabkaasi ay qalqalgeliyeen balse ciidamadii saarnaa markabka ay iska caabin ay ku sameeyeen kooxdii burcadaaheed ee weerarka soo qaaday sarkaal ka tirsan ciidamada midowga Yurub ee ka howlgala xeebaha Soomaaliya ayaa sheegay in lagu guuldareystay in la qabto kooxdii weerarka soo qaaday qoraal ka soo baxay midowga Yurub ayaa lagu sheegay inay wali jirto khatar kooxaha burcadbadeeda Soomaalida ah burcadbadeeda Soomaalida ayaa caqabad weyn ku ah maraakiibta maraya badaha Soomaaliya walow tan ay noqonayso weerarkii labaad ee sanadkan gudihiisa burcadbadeedu ay ku qaadaan maraakiibta ku socdaalaya badaha Soomaaliya warka subax ee raadiyo kulmiye ayaad la socotaan waxa inoo soo socdo wararka dibadda duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr Jabuuti u doono
suxufigii Jamaal Khashoggi waa uu dhintay kadib dagaal ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul sida uu sheegay TV-ga dawladda Sacuudiga oo soo xiganaya baaritaan asaasi ah. Waxaa warkan lagu sheegay in ku-xigeenkii hay'adda sirdoonka Ahmed Al-Aziri iyo Sacuud Al-Qahtani oo ah la taliyaha dhaxal suga Maxamed bin Salmaan xilkii laga qaaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in waxa dhacay aan la aqbali karin laakiin Sacuudigu waa xulufo weyn ayuu yiri. Waa markii ugu horeysay ee dawladda Sacuudigu ay qartay in uu dhintay Jamaal Khashoggi oo muddo ka badan 2 toddobaad la baadigoobay. Boqor Salmaan ayaa waxa la sheegay in uu amray in uu sameeyo guddi wasiir ah oo uu madax u yahay Maxamed bin Salmaan si dib loogu qaabeeyo hay'adaha sirdoonka. Ugu dambeynna in ka badan 60 qof ayaa ku dhimatay, 100 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu tareen jiray dad ku sugnaa meel u dhow magaalada Amritsar la yiraahdo oo ku taala waqooyiga gobolka Punjab ee dalka Hindiya sida booliiska uu BBC-da u sheegay. Mid ka mid ah goobjoogayaasha ayaa sheegay in dadku ay taagnaayeen waddo tareen halkaas oo ay ka daawanayeen dabaaldega xuska dadka Hinduuga ee Dussehra loo yaqaano. Dadka ayaanan maqlin tareenka markii uu soo wajahay iyaga oo ku mashquulsanaa daawashada dabaaldegaasi. Saraakiisha dalkaas Hindiya ayaa waxa ay sheegeen in mudnaanta ay iminka siinayaan sidii dadkii ku dhaawacmay shilkaas loogu qaadi lahaa isbitaalada. Sawirro la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya tareenka oo si xawaare ah ku socday isla markaana jiiraya dadka goobtaasi ku sugnaa. Guud ahaan war wixii dalka dibadda